السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكو سو نقشة وعن وأنا وسمير سماحيل محمد. جنالك نقدر ونسألنا ما سيجا معلم. فضلا هديات كعصبتها هي جنالك هاي لابن سبسكرايب لايك إيه ناد نوصل بهديات كعصبتها جنالك. ما أنتوا حن إذا وضع فيديو ما أنتوا حكوسها بسنة هاي لح قضب وأتكسو جيدين كرتو. أما لح قضب أتكون كرتو قفصو جيد شلح. حقيقي قضب كأجهري وأن كهلدونا ما أنتوا حوي هاي. نمبر 1 kalsoonida ku kalsoonow naftaada markaan kuu sheegay kalsooni waa wax weyn xaqiiqdii waana waxa ugu horeeya qofka marka uu ku noqon karo qof soo jiidasho leh xaqiiqdii qof walba oo maanta koonka saaran ama bini aadam walba wuxuu mar walba ku hangaa inuu ahaado qof soo jiidasho leh inaad qof soo jiidasho leh aad noqoto waxa ku basic ah waxay tahay inaad marka hore ku kalsoonaato naftaada waxaa laga yaabaa inaad tahay qof gaaban ama waxa laga yaabaa inaad tahay qof sayd u dheer ama waxa laga yaabaa inaad tahay qof buuran ama waxa laga yaabaa inaad tahay qof caato whatever how iyo qaabka walba aad tahay ilaahay uu ku sameeyay waxa muhiim ah mar walba inaad ku kalsoonaato naftaada qodobka labaad aan kuu sheegay maanta wuxuu yahay dhowr cadeynta xaqiiqdii dhowr cadeynta waxay ka dhigaysaa qof great ama qof weyn haddii aad tahay wiil ha ilaawin inaad wax yar dhowr cadeyso haddii aad tahay gabarna ha ilaawin inaad wax badan dhowr cadeyso aniga ahaan xaqiiqdii waan jeclahay gabdhaha aadka dhowr cadeey aniga kaliya xitaa maahan rag oo dhan way jecel yihiin gabdhaha aadka dhowr cadeey runtii qof walba bini aadam ah markaad ku qaadisho dhowr cadeyn waxa kuu furmaya dhammaan albaabada qalbigiisa haddii uu qofka albaabada qalbigiisa ku furman ogow waxaad haysaa soo jiidashada fureeda dhowr cadeyntu waa wax aad weyn in badanna nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ayuu kaga hadlay dhowr cadeynta waa muhiim qofka muslimka ah inuu markaa dhowr cadeey waana waxyaabaha ugu muhiimsan aad ku noqon karto qof soo jiidasho leh qodobka saddexaad ama number 3 waa inaad ahaataa qof jimicsi sameeya ama qof exercise sameeya ama qof ku dadaalo jirdhiska xaqiiqdii waxaa laga yaabaa qaarkiin inay isweydiinayaan sidee loo sameeyaa jirdhis ama sidee macnaha exercise aan u sameeyo runtii waxaa jira exercise fara badan waxaad ciyaari kartaa football waxaad ciyaari kartaa basketball waxaad samayn kartaa gym ama waxaad samayn kartaa inaad ordo waxaa sidoo kale way badan yihiin exercise wax la soo koobi karmaa ama waad dabaalan kartaa laakiinse haddii aan gabar nahay maxaan samayn karnaa ee gabdho badan nagu soo weydiin Instagram xaqiiqdii haddii aad gabar tahay exercise fara badan oo aad samayn kartaa ayaa jiro waxaad samayn kartaa adigoo gurigaaga joogo inaad samayso xirkabo ama waxaad samayn kartaa runtii adigoo gurigaaga joogo ama guriga xaqiiqdii ay guriga markaa nadiifiso ama hawsha markaad guriga ka qabato ugu yaraan waxay dhahaan culimada jirdhiska waxay dhahaan haddii qof markaa 4 qol ama guriga uu nadiifiyo waxaa laga yaabaa inuu gubo calorie ah 256 taasoo markaa caafimaad ahaan jirkiisa ka dhigaysa qof firfircoon qodobka afraad ee aan u gudbi doono waxa uu yahay in aad jeclaato nafsadaada waa garanay inaan jeclaado nafsadeyda sideen u jeclaada nafsadeyda xaqiiqdii qofka markuu jecel yahay nafsadiisa wax walbo markaa waa u soo jiidin karaa soo jiidashada number 4 ama qodobkan afraad aan ku sheegayo oo ah inaad jeclaato nafsadaada waa qodobka ugu weyn ee markaa u saaxiib ah inaad qof walba ku soo jiidin karto qodobkan xaqiiqdii ah inaad nafsadaada jeclaato runtii dadku waxay dhahaan ama cilmi baarisada sida David Wine wuxuu dhahay haddii qofka markaa yahay qof self love ama self esteem ama qof nafsidiisa jecel xaqiiqdii wuxuu samayn karaa soo jiidasho aad weyn runtii qof walbana wuxuu ka fiirinaa waxay tahay sida aad naftaada ula tacaamulayso waana og tahay qofka sidiisaba haddii uu yahay qof stylish ah ama haddii uu yahay qof mar walba ku dadaala jirkiisa ama nadaafadii ama mar walba ku mashquulsan nafsadiisa xaqiiqdii wuxuu yahay qof soo jiidasho badan waa una kasoo jiidasho badan qofka kale qodobka shanaad ee aan kuu sheegi doono ha ilaawin qodobka shanaad waa qodob aad u xiiso badan qodobka shanaad aan kuu sheegana wuxuu yahay in aad mar walba iska ilowdo waxyaabaha ama malada xun maxaa ka mid ah dabcan malada xun ama nafsadaada xataa in qaab mala xun aad u hadasho tusaalahaan waxaa laga yaabaa in marka laga hadlayo soo jiidashada aad tahay tusaalahaan ka soo qaad haluma waxaa laga yaabaa inaad tahay qof hilib leh xoogaa ama gabar waxaa laga yaabaa inaad tahay hilib leh ama waxaa laga yaabaa wiil hilib leh oo calool leh ama waxaa laga yaabaa qof gaaban whatever waxa ugu weyn waxay tahay marka hore oo aad ku fikiraysid in
aad ku jeclaato nafsadaada xaaladaas isku day inaad beddesho runtii ayadan waa victim mar walbana waxa ay muhiim u tahay qaabka markaa soo jiidashada waad samayn kartaa isbeddel haddii aad u baahato haddii aad macnaha aad tahay qof saa samee isbeddel ah ama ku laabo qodobkii hore ee jimicsiga haddii aad tahay qof buuran samee isbeddel oo ah inaad jirkaaga beddesho oo aad ka dhigto qof caata wax walbana waa la bedeli karaa dunida haddii aad tahay qof caata ah cunto oo nutritionkooda fadhiya cun oo xaqiiqdii ku dadaal qodobkaas lixaad aan u gudbi doono waxa uu yahay malada xun inaad ku beddesho mala wanaagsan dabcan malada xun sideen ugu beddelaa mala wanaagsan qodobkii hore aan dib ugu laabto malada xun markii aan ka hadlayn xaqiiqdii waa dareemi kartaa malada xun in nafsadaada ay kuu sheegaysa in macnaha aada dhihin qof buuran aad tahay ama qof caato nafsadaada wax fiican kula hadal dabcan beddel wax walbana u beddel malo wanaagsan ama waxaa laga yaabaa malada wanaagsan inaad dhahdo aniga waxaa laga yaabaa mustaqbalkayga inuu noqdo mustaqbal fiican hadhihin mustaqbalkayga waxaa laga yaabaa inuu noqdo mustaqbal xun aniga sidii qof buurna ah ma ihi qof soo jiidasho leh ama aniga waxaan ahay qof caata ah ma ihi qof soo jiidasho badan intaa waa ku fikir laakiin mar walba ku fikir anigu waxaan ahay qof great ah anigu waxaan ahay qof sida ah wax walbana kaga fikir mala wanaagsan haddii xataa naftaada ay ku dhahdo hebel iyo hebel ma ahan qof nafsadaada wax weyn ku ah hebel iyo hebel waa qof agteeda ku weyn maladaada wanaaji lixdan qodob ayaan soo sheegnay waa lix qodob aad ku soo jiidasho karto waxaana ilowin qodob fara badan oo soo jiidasho leh waa jiraan insha allahu tacaala haddii aad janaalkan ku cusubtahay ilowin inaad subscribe saarto like asxaabta u sheegay waxaad leeyahay maxsalaamu